بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كانال كيني SMCC oo mar walba u taagan horumarinta caafimaadka bulshada. Daawadayaal maanta waxaan ka hadlaynaa maxay jirka u qabtaan qanjirada. Qanjiradu waa xubin soo daayo dheecaano jirka muhiim u ah. Waxa ayna leeyihiin habdhis dhan oo loo yaqaano habdhiska qanjirada. Waxaa loo qaybiyaa qanjirada laba qaybood oo kala ah. qanjirada sida tooska u sameeya hormoonada kuna daro wareegga dhiigga. Noocan waxaa afka qalaad loo yaqaanaa endocrine glands. nooca labaad oo ah nooca si toos ah u sameeynin hormoonada laakiin waxa ay sameeyaan dhididka iyo wixii la midka waxaana afka qalaad loo yaqaanaa exocrine glands. Haddaba daawadayaal qanjiradu maxay noo qabtaan? Qanjiradu waxa ay soo daayaan hormoono maamulo shucuurta qofka sida xanaaqa, farxadda, murugada iyo wixii la midka. Qofka marka uu xanaaqo waxa shaqeynaya hormoonka xanaaqa, marka uu farxana waxa shaqeynaya hormoonka farxadda. Sidoo kale murugadana waxa shaqeynaya hormoonka murugada. murugadu waxaa lahaa waa sun ay soo deyso maskaxda. murugada iyo stresska iyo isku buuqa waa sun ay soo deyso maskaxda oo hormoon ah laakiin aan loo baahnayn qofka haddii uu ku booto ay ku sumoobi karo oo qofkii uu nolosha uga dhici karo. sidoo kale waxyaalaha muhiimka uu noo qabto qanjirada waxaa ka mid ah waxa ay ka qayb qaataan koritaanka maskaxda iyo koritaanka jirka. waxa ayna soo daayaan hormoono la shaqeeyo habdhiska taranka. qanjiradu sidoo kale waxa ay ka qayb qaataan burburinta uu beerka ku sameeyo cunnada. waxa ayna xukumaan qanjirada hormoonada uu soo daayo jirka. dhammaan hormoonada jirka uu soo daayo waxa xukumo oo maamulo qanjirada. sidoo kale qanjiradu waxa ay hormoonada ku daraan wareegga dhiigga si ay u gaarsiiyaan dhammaan jirka. qanjiradu waxa ay ka qayb qaataan sameynta difaaca jirka. sidoo kale waxa ay soo daayaan hormoonada hurdada, gaajada iyo wixii la midka ah. qanjiradu waxa ay soo daayaan sidoo kale hormoonada dagaalka iyo deganaanta. qofka mar walba waxa arkaysa qof dagaal badan. qofka markuu dagaalamayo iyo markii uu degan yahay waxa jira hormoono shaqeeya. hormoonada sympathetic iyo parasympathetic ayaa la kala dhahaa. sidoo kale hormoonadu waxay soo daayaan dheecaano ka qayb qaata shiiditaanka cunnada. qanjiradaasna waxaa hooy u ah beeryarada. waxyaalaha muhiimka oo qanjirada ay noo qabtaan waxaa ka mid ah waxa ay soo daayaan hormoonada qaangaarka, uurka, caadada iyo nasnuujinta. hormoonadu waxa ay ku yaalaan qaybo badan oo jirka ka mid ah. hormoonada ugu muhiimsan waxa ay ku yaalaan maskaxda. maskaxda waxa ku yaalo 3 qanjir oo muhiim ah. sidoo kale luquntana waxa ku yaalo qanjir muhiim ah. meelaha kale oo jirka qanjirada uga yaalaan waxa ka mid ah sanbabada, kiliyaha, beeryarada, ugxansidaha iyo xaniinyaha. sidoo kale iyo meelo badan oo jirka ka mid ah. qanjiradu marka waxa ay noo leeyihiin muhiimad gaar ah. qofka markuu xanuunsado ama infection ku dhaco waxa ka soo baxo qanjiro waxa ka soo bax meeshan saracda ah. waxa la dhahaa qofkaas waxa ku dhacay uu qanjiro bararay. qanjir bararkaas maxay sheegaysaa in uu ku jiro infection ama caabuq ayay cadeynaysaa. muhiimadaas ayayna noo leeyihiin daawadayaal qanjirada. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka fahanteen muhiimadda uu qanjirada u leeyahay jirkeena iyo meelaha ugu badan ee laga helo. mahadsanidin.